wararka laga helay dalka Turkiga ayaa sheegaya in ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen dhul gariir ku dhuftay qaybo kamid ah dalkaasi. Mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dawladda dalkaas ayaa sheegay in dhul gariirku uu ka dhacay magaalo u dhow xadka ay wadaagaan Turkiga iyo Iran. wararka ayaa inta ku daray in dhul gariirka awoodiisu ay dhammaysay 5.7 ee halbeega lagu cabiro dhul gariirada ee magnitude ay ka dhaawacmeen ugu yaraan 5 qof. wasiirka arrimaha gudaha Turkiga Suleyman Soylu oo kulan wareed u qabtay warbaahinta ayaa sheegay in ay jiraan dad ku go'doonsan guryo ku burburay dhul gariirkaas loona diray kooxaha gurmadka degdega ah ee samata bixiya dadka ay saameeyeen shilalka waaweyn. wararka ugu dambeeyayna waxay sheegayaan in khasaaruhu intaa ka badan karo maadaama ay jiraan guryo burburay oo dad ku habsaday. dhul gariir xoog badan oo Turkiga ku dhuftay horaantii sanadkan ayaa waxa ku dhintay 41 qof waxaana ku dhaawacmay 1600 oo qof oo kale.